muuqaalo sir ah oo laga helay gabadhii codka ka duubtay fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Qamar Suugaani iyo cadeymo buuxa iyo gabadhaasi oo ka dhaxaysta dhammaan fanaaniinta Soomaaliland. balse inta aan u gudagelin halkani daawadayaal waa Masaal Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamadda gambaleelkana ha iska hilmaamin si aad ula socoto xogihii ugu dambeeyay aan baahino una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena. haddaba waxaan inay haynaa muuqaalo sir ah oo laga hayo gabadhii codka ka duubtay fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Qamar Suugaani. inta aanan u gudagelin muuqaalada gabadha bal aan sharaxaad yar oo kooban in ka siiyo gabadhu waxa ay tahay iyo magaceeda iyo meesha ay ku nooshahay iyo haddaba gabadha magaceedu waxa la yiraahdaa Faadumo Riyaad waxayna ka shaqeysaa TV-ga lagu magacaabo Iriyaal TV ee ku yaala magaalada Hargeysa. sidoo kale waxay TV-gaas u qaabilsan tahay fanka iyo suugaanta oo waxa ay soo deysaa barnaamij toddobaadle ah ee fanka iyo suugaanta ku saabsan. sida aad muuqaaladaba ku daawan doontaan gabadhani aad ayay u dhaqan xun tahay. cadeymaha kale oo inayna waxa kamid ah gabadhan waa la qabaa waxaana la aroosay sanad ka hor. Qamar Suugaaniga hadda ay codka ka duubtane waxa uu ka qaaday hees arooskeedii. hadda ogow ninka ay leedahay uur ayaan ku leeyahay waa ninka qabay maahan ayada waxa qaba wiil kale oo aan inii soo gudbin doono qaybta dambe ee muuqaalka in ku soo gudbin doono. haddaba aan daawano muuqaalka ugu horeeya ee Faadumo Riyaad. muqtaar beero maxaa tiri wallahi billahi qasalkaaga hadal ma karayo wallahi dibnahaaga dhamaan lafahaaga filkaygi jaxaygi wadiga dheerte filterki maxaad ku jirtay wala filterki kiyaa Faadumo Riyaad aad yaa doon adiga qabiyo isqaad barano qabiyo adiga isqaad barano qaalisano ada quruxdaba quraysta dawaaniga adiga bal aan haddana daawano ayada oo Qamar Suugaaniga naftirkiisa kula jirta muuqaal. fanaaniinta Qamar Suugaani Faadumo Riyaad hay soo dhaweey saaxib waan dhawahay saaxib hay adiga asxaabtaada salan qaalin dawladeen marnay aday galf asxaabta ugu xiran social media waxaan leeyahay aad baad mahadsantii heesti bal yar dhoogu tii aad marugu sito taswiirtaadan dayaxa jeclaystay inaan dul suro waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu daman bal haddana muuqaalkan daawo. haddaba aan u guda galno arooskeedii bal muuqaalkan daawo arooskeedii ka hor ay la soo duubtay saaxiibadeed fanaanadan waxa lagu magacaabaa ay muuqaalka kula jirto Zamzam Sharaf ayaa lagu magacaabaa bal ila daawo. Faadumo maanta bal ku soo doonayaa yaa ku soo doonaya no ninki waki ninta ku tabcay qarashkiisa nudugiisa ismista ka jaacada ku dhamaad waxba ma dhigtisaa qadbaan marka ma dhig 680 six baggy macaanka soo kadib ina lagu qabsan ka baqan Qamar Suugaaniga ay hadda ay leedahay uur ayaan ku leeyahay oo ay maaragtay codka ka duubtay waa fanaankii ka heesayay arooskeeda bal aan daawano heestii uu ka qaaday arooskeeda. taswiirtaadan dayaxa jeclaystay inaan dul suro waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu daman taswiirtaadan dayaxa jeclaystay inaan dul suro waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu daman marka sida muuqata oo laga dheehan karo muuqaaladeeda
gabadhan waxa ay ka dhaxaysaa dhammaan fanaaniinta xidigaha geeska ama inta haysta ee joogta Somaliland muuqaalka soo socda waxaad ku daawan doontaan intii la qabay oo arooskeeda markii la dhigay kadib oo ninku qabay ayaa waxa dhacday barnaamijkan oo fanka suugaanta oo iyadu ay qabato fanaan ka mid ah fanaaniinta Hargeysa ku nool ayaa waxa uu yiri aniga adiga jacayl ayaa naga dhaxeeya hadaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay qof la qabo sidee ku dhici kartaa in uu yiraahdo qof kale jacayl ayaa naga dhaxeeya gabadhan hadaba daawo muuqaalka waliba markuu hadalkaas yiraahdo waxa ay leedahay bal ii sacbiya oo maaragtay dadkii kale oo meesha fadhiyaan fanaaniinta kale oo meesha fadhisay axmed rays ayaan ku soo dhaweynayaa sanad cusub oo wanaagsan baan ku leeyahay wanaagsan oo wacan horta inkastoo dee labadeena jacayl hoos inaga dhaxeeyo soo istaago horta istaag isku rasan caawa hadid baan ku hayaa sanad wanaagsan dadku isku keen xantaa labadeena aad iyo aad dee haddaba caawa waxaan jeclaystay inaan ka rumayno haye insha allah bal waxaan ku siinaya isku war bal saxabkay garaacade horta qofta codka duubtay oo sheegaysa in uu qamar suugaano uurka u yeelay waa qofta noocaas ah waxaad nooga barateen in aan inii soo bandhigno dhacdo walba ee dhacda xaqiiqadeeda qofka ama Faaduma Riyaad dadku ma aynay ogeyn codka markii ay dhageysteen mana aysan ogeyn in ay tahay Faaduma Riyaad oo ay isqarinaysa ayadu in ay Faaduma Riyaad tahay marka haddaba baaritaan dheer oo sameynay waa aan soo saarnay Faaduma Riyaad waa wariye ka shaqeeya Real TV qaybteeda suugaanta axmed rays ayaan ku soo dhaweynayaa sanad cusub oo wanaagsan baan ku leeyahay wanaagsan oo wacan horta inkastoo dee labadeena jacayl hoos inaga dhaxeeyo soo istaago horta istaag isku rasan caawa hadid baan ku hayaa sanad wanaagsan dadku isku keen xantaa labadeena aad iyo aad dee haddaba caawa waxaan jeclaystay inaan ka rumayno haye insha allah bal waxaan ku siinaya isku war bal saxabkay garaacade Fadumo maanta baa lagu soo doonayaa yaa ku soo doonaya nuunu ninki ninta ku tabcay qarashkiisa adduunkiisa ismista ka jaacada ku dhamaad waxba ma dhigtisaa dad baan marka ma dhig 6 weey six bag macaanka soo kadib in la igu qabsan ka baqay igu qabsan 6 bag haddaba daawade waxaad si fiican u daawatay barnaamijkaasi xiisaha badnaa oo aad kala socoteen masaal media gabadhan qamar suudaani ka duubtay codka sirtaana waxaad ogaatay inay tahay gabadhani ka shaqeysa TV-ga Ariel ee ku yaala magaalada Hargeysa masaal media waxay markasta idin soo gudbi doontaa xogaha iyo wax walba oo ka qarsoon si aad ula socoto muuqaaladan iyo kuwa kale oo xiiso leh oo arrintan ku saabsan oo iska soo daba dhacaya fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran masaal media oo subscribe saaro channelka sidoo kalena calaamada gambaleelka ha iska hilmaamin bahda masaal media waxay daba gashaa wixii ku cusub bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo bandhigi doonaa xogo badan oo ka qarsoon si aad arrimahaas oo dhan u ogaato waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto una ogaato kana mid noqoto dadkan lagu tixan masaal media waa shabakad madax bannaan oo sidoo kale ka mid ah shabakada YouTube-ka ee la isticmaalo waxayna gaar u tahay warbixintaani iyo warbixinada ay soo xigato kale kuwa ku saleysan xaqiiqda haddaba qamar suudaani ayaa hadda ka hor waxaa xasuusataan in lagu dilay magaalada Hargeysa oo si xun loo garaacay balse arrintani waxay ka hor imaanaysaa anshaxa fanaaniinta iyo wariyaasha uga degsan xeerka saxaafadda ama xeerka fanka Soomaaliyeed baan dhahay guud ahaan fanka Soomaaliyeed ay arrintani waxay ku tahay fadeexo iyo meel ka dhac kadib markii gabadhaasi codka ay ka duubtay qamar suudaani waxaa hadda suuragal ah in qamar suudaani xabsiga loo taxaabo maadaama
masaal media ay soo bandhigtay xaqiiqda iyo runta iyo sidii wax u dhaceen waxayna arrintani hadda laamaha ammaanka ee magaalada Hargeysa ay sheegeen inay baaritaan ku sameyn doonaan gabadhaasi waxaana iyada looga yeeray xarunta CID-da ee dib baarista gabadhan kadib markii masaal media ay baahisay muuqaalkan oo dhammaystiran iyo fadeexadan soo shaabaxday dhowaan waxaan sidoo kale bannaanka keenay qofta ay ahayd gabadhaasi fadlan nala socda intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka